Kanaalka Panama waa mid muujinaya heerka injineernimo ee bini'aadamka maadaama laga hirgeliyay meel aan shidadeedu yareen. Waxaana muuqaalkan iskula eegaynaa muhiimadda uu leeyahay iyo taariikhda uu soo maray kanaalkan boqolka sano ka badan shaqeynaya ee isku xira badweynta Atlantic-ga iyo badweynta Pacific-ga. Inta aan la hirgelin kanaalkan waxay doonta joogta bariga ku qasbanaan jirtay in ay galbeedka aado iyadoo jaraysa masaafo aad u fog. Waqtiga ay intaasi ku safraysana wuxuu ahaa ku dhawaad hal bil. Haddaba hadafka lagu hirgeliyay kanaalkan wuxuu ahaa hadaf dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo dahabi ah, wuxuuna bini'aadamku ku riyoonayay ilaa qarnigii 16aad, markaasoo la bilaabay isku daygii ugu horeeyay ee lagu dhisayo. Sanadkii 1513 sahmiyihii Isbaanishka ee lagu magacaabayay Vasco Nunes de Balboa ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee daha qaaday halka laga hirgeliyay kanaalkan, waxayna tani dhalisay in la baadi goobo halka ugu sahlan ee laga hirgelin karo marinbiyood isku xira labada badweyn. Sahmiye Vasco Nunes wuxuu fikraddan u geeyay Charleskii shanaad ama boqorkii Spain. Haddaba boqorkii Spain wuxuu dalbaday in indho-indheyn lagu soo sameeyo si loo ogaado inuu yahay mashruuc macquul ah, balse kuwa uu u diray waxay si degdeg ah ugu soo celiyeen xog sheegaysa inuusan ahayn mashruuc suurtagal ah. Isku daygan wuxuu ahaa kii koowaad mana uusan rumoobin, waxayna qaadatay ku dhawaad 300 oo sano in mar kale mashruucan ballaaran si dhab ah isugu howlo. Boqolaalkaasi sano intii lagu guda jiray waxaa jireen dalal badan oo isku dayo aan dhab ahayn sameeyay. 1881 waxaa mashruucan la wareegtay shirkad Faransiis ah oo uu hogaaminayay Ferdinand de Lesseps oo ahaa diblomaasi hore oo Faransiis ah, waana shaqsiga hormariyay isla markaana dhidibada u taagay mashruucii lagu dhisay kanaalka Suez. Ferdinand de Lesseps asigoo kaashanaya khibradiisa wuxuu bilaabay qodidda kanaalka Panama, balse mashruuca waa uu sii socon waayay sababo jira darteed, sida qorshe xumo, dhibaatooyin dhanka injineerinka iyo cudurro dilaacay oo ay ku dhinteen ilaa kumanaan shaqaale ah. Haddaba mashruucan si uu u sii socdo waxaa lagu soo daray Gustave Eiffel oo ah injineerka dhisay birta caanka ah ee Paris si uu u sameeyo aalado lagu saxayo heerarka kala duwan ee biyaha kanaalka. Balse ugu dambeyn waxaa musallaftay shirkaddii Faransiiska ee uu hogaaminayay Ferdinand de Lesseps sanadka marka uu ahaa 1889. Kolkaana waxaa kanaalka gashay lacag gaaraysa $260 milyan, waxaana la qoday in ka badan 70 milyan oo mitir kuyub. Burburka mashruucan wuxuu Faransiiska ka noqday fadeexad xooggan oo ku habsatay de Lesseps iyo Eiffel iyo weliba maamulayaashii kale ee shirkadda, waxaana dhammaantooda lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo maamul xumo. Isku daygan fashilka ku soo dhamaaday kadib waxaa mashruucan loo oggolaaday shirkad kale oo Faransiis ah si ay ula wareegto hantida kanaalka ee ku shaqeynaysay shirkadda musallaftay. Haddaba shirkadda cusub ayaduna waa ay sii wadi weysay, durba ayayna gacanta ka taagtay. 1800 ilaa 1801 Mareykanka wuxuu daneynayay kanaal isku xira badweynta Pacific-ga iyo badweynta Atlantic-ga sababo dhaqaale iyo mid military awgeed, wuxuuna istusayay inuu kanaalka ka suurtagal yahay dalka Nicaragua. Si kastaba ha noqotee, muddo kadib, gaar ahaan dabayaaqadii qarnigii 19aad, waxaa dadaal badan ku bixiyay in mashruucan la soo nooleeyo injineer Faransiis ah oo lagu magacaabayay Benoit Frela. Wuxuu u ololeeyay oo uu ku cadaadiyay sharci dejiyaasha Mareykanka in la iibsado hantida taala kanaalka Panama, wuxuuna sidoo kale qaarkood ku qanciyay in dalka Nicaragua la saaxiib yahay foolkaanooyin khatartooda leh, isla markaana Panama ka nabadgelyo badan tahay. Haddaba 1902 Koongareeska Mareykanka ayaa oggolaaday inuu Mareykanka iibsado hantida Faransiiska ee kanaalka Panama si mashruuca kanaalkan lagu dhisayo loo guda galo. Panama markan waxay hoos tegaysay Colombia, waxayna Colombia diiday inuu Mareykanka kanaal ka hirgeliyo Panama. Haddaba dadka reer Panama oo ku kacay Colombia iyo cadaadiska iyo ololaha injineerka Benoit Frela waxay sababeen inuu madaxweynihii Mareykanka ee Theodore Roosevelt qaato go'aan ka dhan ah Colombia oo ah inuu Panama u aqoonsado dal madax bannaan. Markaasi kadibna waxaa dhacay heshiis la yiraahdo Hay-Panama Treaty oo ay Mareykanka iyo Panama wada galeen 18 November 1903, waxaana lagu heshiiyey inuu Mareykanka kanaal ka hirgeliyo zone gaaraya 500 oo mayl oo isku wareeg ah iyo inuu Mareykanka maamulayo kanaalka. Wuxuu Mareykanku dhisayay muddo 10 sano ah, waxaana la bilaabay dhismihiisa rasmiga ah 1904, waxaana la soo gabagabeeyay 1914. Kanaalkana waxaa Mareykanka kaga baxay lacag gaaraysa $375 milyan oo $10 milyan oo ka mid ah la siiyay Panama, halka 40 milyanna uu Mareykanku ku iibsaday hantida Faransiiska ee kanaalka Panama. Shaqaalaha dhisay kanaalka waxay wajaheen caqabado badan oo kala duwan,
sida roobabka xooggan ee ka da'a Panama, keymo leh noocyada kala duwan ee xayawaanada bini'aadamka waxyeeleeya, waxaana sidoo kale u sii dheeraa cudurro halis ah oo haleelayay. Markii hore oo ay shirkadda Faransiiska ka howlgashay kanaalkan, waxaa ku dhinteen shaqaale gaaraya 20,000, balse markii dambe uu Mareykanku la wareegay tiradaasi oo kale ma dhiman, waxaana intii u dhaxaysay 1904 ilaa 1914 ku dhinteen dad gaaraya ilaa 5,000. Kanaalkan wuxuu noqday mid uu ku faano Mareykanka, wuxuuna sii xoojiyay dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee gobolka, waxaana gaadiidka mara laga qaadaa lacag xooggan, waxaana lacagta laga qaado lagu jaangooyaa xajmiga badeecada ay wadaan, waxayna maraakiibta aadka u waaweyn bixiyaan lacag gaaraysa ilaa $450,000. wuxuuna ahaa markabkii ugu horeeyay ee kanaalkan ka gudba SS Encon oo laga leeyahay dalka Mareykanka. Lacagtii ugu yareed waxaa kanaalkan kaga gudbay Richard Halliburton oo bixiyay wax ka yar $0.5, wuxuuna kaga gudbay kanaalkan dabaal. Kanaalka Panama wuxuu baajiyay waqti badan oo ku bixi lahaa gaaridda badweynta Pacific ama badweynta Atlantic-ga, wuxuuna ugu yaraan safarka lagu tiigsanayo qaadan jiray ilaa muddo bil ah. Maanta safarka lagu gaarayo labada badweyn waa 8 ilaa 10 saacadood, waxaana sanadkii ka gudbaan 13 ilaa 14 kun oo markab. Intii uu cusbaa kanaalkan waxaa socday xiisado u dhaxeeyay Panama iyo Mareykanka oo ku qotoma cidda maamulaysa kanaalka. Qalalaasooyin, banaanbaxyo iyo xiriirka Mareykanka iyo Panama oo go'ay kadib, waxay ugu dambeyn Mareykanka iyo Panama 1977 ku heshiiyeen in wax laga bedelo heshiiskii Mareykanka xaqa u siinayay inuu kanaalka maamulo, waxaana la isku raacay in kanaalka si rasmi ah Panama loogu wareejiyo marka la gaaro sanadka 1999.